عبد الرحمن عاد بعض ما تنتهي والسلام يا بهذا مارك حافظ ثلاثة بعد وليات النقل جرادة وسيلة صغار كان وحبذي حين جراتها مع جراد علي وجرات الدجاج كان أفقد عليه وأنا لا تشوجا بوه بوح كان جراد بالفقر توفي سلطان سعيد عثمان أنا وجراد سلانة وجراد عبد الله عيسى جراد عثمان محمد عثمان مسخرة يحكي ليش وحنا كان من النجال أما هو عمي دولار وصالح دارق أول من الناس الشغل سجال يعني كنت مع الناس فقط جرادة وسيلة بس على البحث أيام مخدة كوسة والنعالكة والواحد كل جول سنين عينا في التلقانه شرعي بانه ما يجاد يس الدجال فقد عنه يجاد يوميس اللي يراهده مجالي يوميس اللي يراهده كان دبل وين إلى جاء دجال فقد عيونه وان كرمر كمرمي أنا كل شيء لما وانا كل جول سنين ورياس الدجال كأن ولا شكاين وعاد نبض وبحلم واحد يقول لك علمي لك الفضيه لما كان لو دوا واحد بتشي انت اصلا هذا كل دول يسمي الجوي كله كان قال كعيه بالضبط يوضع كعيه يملا كره ايا يلنا ويني oo maartay odayaal dhaqanka iyo isugu jira culimo dad aad u fara badan baa dhulka kusoo qoqolayo ka maartay ka dhaxay ama aad waxa meeshan ka dhacay dadkaas inta leeyahay waxay wada yimaadeen in dhammaan la joojiyo dhibaatada meesha ka dhacday xal loo helo iyadoo soo noqnoqotay ilaahay idinkiisa inay kama dambaysti noqoto halkii waarna loo helo ayaan rajaynaynaa haddeerna jawigu aad u fiican yahay wixii kale oo marka hadda joojinta nabadda way kala horeysaa hadda joojin iyo ciidanka la kala fogeeyo wax laga bilaabo weeye wax kala guris iyo wax kala sheegasho iyo dibbay maaragtay ayay noqonaysaa iyo waqtigeeda iyo meesheeda waxa dadkaasoo dhan u wada yimaadeen in maaragtay hawsha iyada culayskeeda intaasoo dhan isugu yimaadeen oo dhibno meel ka yimid talaataa garad ismaaciil iyo wafti hogaamin isaguna laascanad ka yimid nala jooga marka intaas weeye hawsha waana fiicanta aad iyo waa fiicanta cabdiraxmaan waa tahay garaad sidaad ogsoon tahayba muddooyinka ugu dambeysay deegaanadaasi shaqaaqooyin kala duwan ayaa ka dhacay oo dhuldaaqsimeed inta badan ku salaysnaa inkastoo siyaasad arrintu aysan ka marnayn markaa ajandaha idin xigi doona markaad kala qaadeen ciidamada isla markaasna maslaxadaad ka raadinaysaan labada dhinac maxay idin xigi doonaa marka saas oo kale dib u dhacdo oo deel istilaan oo dhibaato dhaqanku wuxuu leeyahay meelo kala horeeya laga bilaabo sida xabad joojin ciidanka la kala fogeeyo intaa marka la sameeyo jawi labadii beelood la isugu keeno oo guddiga looga soo xulo oo dhibkan maaragtay dad kalena ku dhex joogaan lagu kala guro wixii kala meesha ka dhacay iyo dhibaatooyinkii iyo siday wax u dhaceen iyo meeshii markii hore wax marayeen ay taagnaayeen iyo waxyaalihii oo dhan baa maaragtay waa fayska labaad oo ku xiga waana u fadhinaa haddeer sidii maaragtay ay u hideynahay waa tahay garaad waxaa jirta garaad in muddooyinkii ugu dambeysay lagu eedeynaya colaadaha iyo dagaalada kusoo noqnoqonaya deegaanadaasi ee u dhexeeya dadka kasoo kala jeeda deegaanada magacaley iyo qoriley maamulada puntland iyo somalilan oo iyagu qayb ka ah dagaaladaasi sida la sheegay marka maadaama meeshii siyaasad aysan ka marnayn xilligana ay idinka laftarkiini aad wadaan dhexdhexaadin labada dhinaca maxaad markaa ka yeelaysaan fatahaadaha siyaasadeed ee idinkaga soo wajihi doona maamuladaasi hadda markaanu nimi labada qolo midna ma joogin wax raada ay leeyihiinna annagu ma arag wax sheega wax aragga in wax la arko ayaa maaragtay ka horeysa waxa waa la sheegayaa marka meesha laga maqan yahay dadka isku dilay meesha iyo systemka ayaa inay la kala safan dad oranaya way jireen laakiin markaanu nimi annagu ma arag ha yaraatee wax raada oo labada qolo ay leeyihiin baaris ka bacdi iyo marka arrinta la dabagalo oo muddadu farageliyaan oo dacwadaha la kala qaado hadday ku soo baxaan in ay faragelin ku hayaan labada maamul oo ay ku jiraan ama lu ku leeyihiin tallaabaa laga qaadaya waana loo sheegaya ciddi ka mas-uulahayd iyo meesha ka timid lakadaana laga saaraya haddii lahayd waa tahay garaad waxaa jirtay in ciidamo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee liyu booliska muddooyinkii ugu dambeysay ay ku sugnaayeen deegaanka docm ee gobolka sool sida nagu maqalaa
kuwaasoo ujeedkoodu uu ahaa inay kala dhex galaan labada dhinac ama beelaha isku dagaalamaya ee deegaanada Magaclay iyo Qoriley. Marka ciidamadaasi ama hogaamiyaasha ciidamadaasi qayb ma ka yihiin dhexdhexaadintaad wadaan oo dowladda Itoobiya maadaama xuduud meeshu ay ku taalo gacan saar ma kala yeelateen arrimaha xilligan aad ku howlanteen? Antaan soo gaarin meesha waa maqli jirnay maartay dowladda Soomaaliya ciidamo ka imanaya inay joogaan ama xadkii meesha tahay ay kala celinayaan, laakiin wax raad ah ay leeyihiin haba yaraatee maaragtay ama ama maamul ah oo maartay dhinaca ka socda oo aan aragnay hadda ma jiraan intii aan meesha marnaa ciidanka qaadan. Waa tahay garaad ugu dambeyntii garaad waxa tabashadu aad bay u badan tahay waad ogsoontahay muddooyinkii ugu dambeysay dagaalo culus baa labada dhinac dhex maray oo dadyo kala duwan baa ku dhintay khasaare aad u tiro badan oo soo kala gaadhay labada dhinac. Marka ugu dambeyntii maxaa xal loo arkayaa? Ma in wixii meesha ka dhacay oo dhan tanaasul lagu sameeyo mise in qof walba loo qiimeeyo sidii wax u gaadheen labada dhinac? Marka hore Ilaahay baan baryayaa arrintaas soo noqnoqotay inta madda ayna soo noqon Ilaahay baan weydiisanaynaa dadka islaamka ah dhimanaya waliba ehelka ah marka soo noqon Ilaahay baan ka baryaynaa waan ku rajaynaynaa inay naga aqbaleen marka soo noqon. Anigu waxaan joogay iyadoo bilow oo laba qof kaliya ay dhinteen hadda dhimashada labada hadii la soo daro 100 waa gaaraysan waa ku dhowda 9 sano ka hor iyadoo laba qof ka dhinteen kaliya ayaan fikrad ugu horeeyay baaha maanta 100 sano waan joogaa mar walba marxalad bay lahayd Ilaahay xilmadiisa ayaa maartay ay mar walba dad ma fadhimanayo oo Ilaahay ugu talagalay inuu dilayaan mar kasta islahayn kala badbaadiyana mar walba waa dadaalayna waxayna u dhowdahay inay maanta noqoto maalinka dambeysay waayo dad kala gudishan oo qaar ay ka yimaadeen maartay ka balaan diyaarad lagu tuman baday oo dhaqan sida waa ka timi oo dadka dhulka dega oo maartay ka balaan booxso waa laga yimid maadaama dadkaas oo iyagu horena u gelin arintana xaqiiqda ka sheegaya ay joogaan oo laga yaabo in aad looga garno hawsha waxaan rajeynayaa inay maanta ku ekaano. waa tahay dhageystayaalkaasina wuxuu agaraad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo kamid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag Cayn oo xilligan ku sugan deegaanka Qoriley ee gobolka Sool oo muddooyinkii ugu dambeysay deegaanadaasi ay ka dhaceen shaqooyin u dhaxaysay beelo walaalaah oo ku kala abtirsaday deegaanada Magaclay iyo Qoriley. aad baad u maasantay garaad. adiga mudan inaad dhexmaan